قادر كيني haddaan dhalinyay uba haddaynaan horumar dhalin haddaynaan hiigsan meel haddaynaan hubayda gurine haddaynaan hubayda gurine daawadayaal dhalinyaradu waa udub dhaxaadka ay bulsho ku faanto waa aayaha iyo mustaqbalka biri waa aabaha iyo hooyaha biri waana madaxda iyo mas'uuliyiinta mustaqbalka dhow dal kasta oo caalamka ka mid ah oo horumar gaadhay waxa uu maalay maskaxda dhalinyarada daawadayaal haddii maskaxda iyo muruqa dhalinyarada si habboon looga faa'iideysto waxa uu keeni karaa isbeddel la taaban karayo kaasi oo bulshadu ay ka faa'iideysan karto haddaba haddaynu soo qaadano wadannada caalamka Stephen John waxa uu ka mid yahay dhalinyarada nasiibka u helay in ay ka faa'iideystaan aqoontooda iyo maskaxdooda ku duugan taasi oo markii ay tuujiyeen ay garab iyo gaashaanba siiyeen bulshada uu la nool yahay iyo waliba xukuumaddiisu kuna taageereen fikirka wanaagsan iyo garaadkiisa siyaasadeed waxa uu ka midho dhaliyay oo uu hindisay shirkadda casriga ah ee loo yaqaano Apple taasi oo soo saarta telefoonada casriga ah ee iPhone iyo iPad iyada oo la og yahay in ay ka faa'iideystaan malaayiin dad oo ku nool caalamka aqoon ahaan iyo shaqo ahaanba daawadayaal bal aynu daymoono dalalka aynu jaarka nahay sida Kenya, Rwanda iyo waliba Ethiopia waxay ku talaabsadeen dhalinyarada wadamadaasi laguna dhiirigeliyay sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen aqoontooda ugana qayb qaadan lahaayeen hogaaminta dalka 20kii sano ee Soomaaliland xornimadeeda qaadatay waxa sare u kacay in la dhiirigeliyo sarena loo qaado aqoonta waxbarashada dhalinyarada Soomaaliland taasoo ay fursad u heleen tacliin dugsi hoose ilaa heer jaamacadeed oo aanay hore awoodi jirin ama aanay heli jirin taasina waa ta keentay in dhalinyarada Soomaaliland ay noqdaan kuwa aqoon ahaan iyo garaadka siyaasadaba ka dhisan oo maalinba maalinta ka dambaysa garaadkoodu kor u sii kacayo iyaga oo gaaray horumar la taaban karayo inkasta oo dalkeenu yahay dal aan la aqoonsanayn taageerana aan ka helin dalalka caalamka sida dhalinyarada ku nool dalalka la aqoonsan yahay waxa dawladda Soomaaliland gaar ahaan xukuumadda uu hogaaminayay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo fulisay ballanqaadyadii ku wajahnaa xilligii ololihii doorashada madaxtinimada dalkeen oo ay ugu horeysay shaqo abuurista dhalinyarada sidii waxbarashada bilaash looga dhigi lahaa iyo sidii dhalinyaradu ay uga qayb qaadan lahaayeen saxada siyaasadda dhalinyarada Soomaaliland oo muddo dheer halgan ugu soo jirtay sidii ay uga muuqan lahaayeen fagaarayaasha siyaasadda iyo hogaaminta dalka waxay halgan dheer u soo mareen oo ay geed gaaban iyo geed dheerba u soo fuuleen sidii ay uga mid noqon lahaayeen hogaaminta talada dalka 20kii bishii 7 2012 waxa sida cadceeda u ifay rajadii dhalinyarada Soomaaliland kadib markii xukuumadda Soomaaliland iyo golaha sharci dejintu ansixiyeen xeer lambar 20 oo ah xeerka u ogolaanaya dhalinyaradu inay ka qayb galaan siyaasadda waxaana u suuragelisay inay dhalinyaradu u tartamaan doorashada golaha deegaanka ee la filayo sanadkan inay ka qabsoonto dalkeena Jamhuuriyadda Soomaaliland haddaba su'aasha isweydiinta mudane waxa ay tahay haddii dhalinyaradu ku soo biiraan saxada siyaasadda maxaa isbedel ay ku keeni karaan siyaasadda dalka waa dulucda iyo ujeedada uu xambaarsan yahay barnaamijkan waxaan su'aalo kala duwan u bandhigno oo aan wax ka weydiinay aqoon-yahan siyaasiyiin indheer garad iyo dhalinyarada u taagan inay ka qayb qaataan siyaasadda dalka dhisan ee xukuumadda maanta jirta madaxweyne Axmed Maxamed Siinaayo markii xisbiga kulmiye ka ahaa gudoomiyaha ee campaign iyo doorashada aan gelinay dastuurka xisbigana la sameeyay wuxuu ballan qaaday oo adeeyay inuu xukuumaddu dhisayo dhalinyarada door weyn ka siin doono muna ka siiyay runtii waana lagu guuleystay oo waxay noqotay in lagu faa'iiday maanta golaha wasiirada hadaad eegto intaasoo dhalinyarada ku jira intaasoo dhalinyara ayaa ku jira wasiirka madaxtooyada kamida wasiirka duulista hawada kamida wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada kamida wasiir dawlaha arrimaha dibadda kamida wasiirka amniga ee arrimaha gudaha kamida yani waxa weeyaan bal adigu u fiirso waxa weeye inta dhalinyarada inta ugu fiican waa dhalinyaro walaal wasiirada agaasimayaasha aniga agaasimahaygu waa dhalinyaro agaasimaha shaqadii arrimaha bulshada waa inaan dhalinyaro macdanta biyaha waa inaan dhalinyaro kalluumaysigu waa inaan dhalinyaro wasaaradda waxbarashada waa inaan dhalinyaro wasaaradda
caafimaadku waa nin dhalinyaro ah agaasimaha TV-ga imika jooga Khadar Cali Gaas waa kamid waa nin dhalinyaro ah agaasimihii hore ee laga bedelay imika laga dhigay afhayeenka madaxtooyada dhuxul waa nin dhalinyaro ah agaasimihii hore ee warfaafinta laga bedelay Faysal Ali Sheikh oo arrimaha dibadda la geeyay waa nin dhalinyaro ah agaasimaha imika warfaafinta jooga Cabdirashiid waa nin dhalinyaro ah maarayaha wakaalada biyaha wadinka arkay Ibrahim Siyaad waa nin dhalinyaro ah maarayaha hay'adda wadooyinka waa nin dhalinyaro ah warshada leerka ninka haysta waa nin dhalinyaro ah mabdacada inanka joogay maarayaa ka ah waa nin dhalinyaro ah quality controlka inanka jooga waa nin dhalinyaro ah yani waxa weeyaan dhalinyarada lafteedu waa inay fahanto marka sida markaad u eegto waxa xukuumadda Soomaaliland ay dhisay gabigeeduba boqolkiiba 60 ee dhalinyarada marka taana waxa weeyaan dhalinyaradu roolkeediina waa la siiyay runtii wayna ku soo baxeen oo taa aad iyo aad bay ugu soo baxeen waana ku amaanayaa shacabka reer Soomaaliland oo ku wada amaanaya in ay noqdaan dhalinyaradii ugu horeysay siyaasadda gasha ee madaxweynuhu ku bilaabay kuna guuleystay xilalkii loo magacaabay hooyo waa arin farxada dhalinyarada Soomaaliland farxad bay u tahay aniga ka wasiirana maadaama aan wasiirka dhalinyarada anigana farxad bay tahay maadaama dhalinyarada xukuumadda ku jirta ay noqdeen dad wada guuleystay oo shaqooyinkoodii ka soo baxay waxa kale kamid ah imika hay'adda shaqaalaha kale dawaatan waxa loo furay jaamacadaasi waa bilaash waxa la waxa dawladda u shaqeeyo oo dhan bagala bilaash ba ku bartaan ninkii dhalinyarada isagoo shaqadii jooga oo shaqeynaya mushaharkiisa qaata ayuu jaamacadina ka soo qalin jabinaya ka soo baxaya dawladda ayuu ka soo baxaya oo digrigii qaadanaya taasina waxa weeyaan waxay ka mid tahay faa'iidada isbedelka ee dhalinyaraduna ay heshay xukuumaduna ay keentay jaamacada wadiga arkay kumaanku baa ka soo qalin jabinaya maalin walba waxay ka mid tahay faa'iidooyinka ay dhalinyaradu heshay xukuumaduna ay siisay ka mid tahay marka haween taana aad iyo aad baa dhalinyaradu xagga uga dhisantahay faa'iido badan ku heshay waxaana la oran karaa xukuumadda maanta jirta waa xukuumadda dhalinyarada runtii taas la oran karaa waxa kale oo aan daawadayaal la kulmoon arrintaasi wax ka weydiiyay agaasimaha maxadka tababarka shaqaalaha dawladda maxamed mixile boqore oo aan weydiiyay bal isbedelka ay dhalinyaradu siyaasadda ku keeni karaan waxa uu yiri horta marka la rabo wixii la bedelo caalamka dawladaha inteen sideenoo kale kuwii burburay ee masalan ka soo kabtay ee horumarin dambeeyna haraw gaaraan doonay ee dib isku soo nooleeyay horta horumarka inta waxa laga bilaabay xagga dhalinyarada waayo dadkan hore ee dawladuhu ka burbureen waxay ahayn dad korruptida dad musuqmaasuqa laakiin kuwan dhalinyartu wali waa wax yar yar oo musuqmaasuq waxba kama yaqaan bisay waxba kama yaqaan waa iska shaqadoon haday shaqada helaan bay abaal ku qabaan waxana musuqmaasuq uu la xun yahay oo aragti noocaas ah dhalinyarta ku yaal anigu waxaan soo maray 18 waddan oo caalamka horta kolkan human resources soo bartay haddana 18 waddan oo caalamka soo maray waxaan soo maray waxa si aan reform kan uun bal wax aad uga barto reformku marka laga dadaalayo number 1 horta waxa la yiraahdaa badanaa nabadgelyada ay ku xiran tahay waa in la nabadgelyada la sugaa waa security-ga la sugaa waa in dhalinyarta kor loo qaado maaliyadana waa in la hagaajiyaa haddaynu rabno inaan haraw marno horta dadkeena corrupted-ka ee corruption-ka yaqaanay ee qabiilka yaqaanay ee waxa yaqaanay oo horta meesha inay ka baxaan baa fiican waa fiican dad dhalinyaro oo taraabirisan deeymka dhalinyarta oo taraabirisan ku beeraynaa waa dhalinyarta jaamacadaha waa in laga ilaashaa taraabirisan waa in qabiilka laga ilaashaa waayo waxaan dadkani wadada waa inay ahaadaan dad kreema oo soo baxa dalka marka hadii dhalinyartu la influence gareeyo oo magaranaysa iyaga shaqada la siiyo oo muxuu ahaay lectures fiican loo dhigo oo hakadayno waxaan taraabirisan kaniyo balaayadan iyo doorashadii qabiil noqotay waad wadanku hore u maraya dhalinyartii han tababaray maaliyadu kale aad bay uga bedelay wasaaradda dakhliga aad bay uga bedelay wasaaradda dhalinyarada wasaaradda ciyaaraha iyo wasaaradda maxaa la yiraahdaa labor and social development aad bay uga bedelay wasaaradda qorsheynta oo kale aad bay uga bedelay shaqaalaha dhalinyarta ee baray balorda imika wasaaradda qorsheynta tagay kasto raggan haystay meesha ay yihiin khubara oo sida saacado kale iyo agaasimaha guudi haddana dhalinyartu hadii dhalinyartaadu ku sheegto wixii ay filin waayeen waa dhibaato la korka dariiqa u jeexdo ragayga sare maamulka ay dhalinyartu waa inay fulisaa marka eeg bahadaad wasaaradaha martaan dhalinyartan tababaray sida ay yihiin you cannot imagine waxaan sidoo kale daawadayaal la kulanay gudoomiyaha dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo oo wax ka weydiiyay isbedelka ay dhalinyaradu ku keeni karaan siyaasadda weeyaan saamiga dhalinyarada waxa weeyaan imika ku jirta dawladda
marka la barbar dhigo dawladihii hore waxaa runtii cad in waxa weeyaan door aad u weyn inay dhalinyaradu ku leeyihiin dawladda haatan talada haysa waxaa jira dad fara badan oo runtii shariifa oo maanta la odhan karo wixii ay qabteen waxa weeyaan hadday noqonayso dawladda iyo hadday noqonayso ururada bulshadaba hadday noqonayso ganacsatadaba haddaan ka horreeyo dawladda waxaa runtii aan tusaale soo qaadan karaa gudoomiyaha wakaaladda waxa weeyaan biyaha waxaan kaloo soo qaadan karaa gudoomiyaha waxa weeyaan maxaa la yidhahdaaye wadooyinka iyo ma garanaysaa waxaa kaloo iyaduna hubaan lagu horta agaasimaha guud ee wasaaradda TV-ga agaasimaha dhalinyarada ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo runtii maxaa la yidhahdaa dad aad u fara badan oo aanan halkan aan ku soo koobayn inta aanan magacyadooda sheegina runtii waa ka xumahay laakiin waxa maanta waxa weeyaan cad oo hoos laga xariiqaya meel kasta oo nin dhalinyaro hayaba inuu ka soo baxay taasi waa mid hadday noqonayso ururada bulshada maanta waxa weeyaan cidda wada oo waxa weeyaan ururada bulshada waxa weeyaan waa dhalinyaro waxaana tusaale cad u soo qaadan karaa soonyo oo runtii ah dalada dhalinyarada heer qaran waxa weeyaan wadanka oo runtii muddadii ay jirtay wax la taaban karo bulshada ku soo kordhisay ganacsatada markay noqoto oo inta badan dadku aanay dhugmo gaara aanay waxa weeyaan u yeelan waxa hubaala maanta ganacsatada inay dhalinyaro fara badan oo runtii fikiro iyo dadaalo fara badan ku jiraan inay jiraan waxa tusaale cad aan u soo qaadan karaa runtii waxa weeyaan shirkadda Dollar Store Shiine Axmed Shiine oo runtii ku soo kordhiyay wax la taaban karayo waxa jira runtii ganacsato kale oo waxa weeyaan dabaqada dhaxa oo iyaguna waxa weeyaan wax fiican ku soo kordhiyay marka guud ahaan hadaan waxa weeyaan soo koobo waxa jirta waxa weeyaan sagal waxa weeyaan British Satter waxa jirta asal waxa jirta waxa weeyaan tayo waxa soo dhan runtii aan magacaabay inta aan magacaabin waxa runtii hubaal iyo tusaale cad u tahay waxa weeyaan dadaalka ay dhalinyaradu ku jiraan ay kaga jiraan hadday noqoto xaq siyaasi ah hadday noqoto xaq dhaqaale iyo hadday noqoto xaq bulshada marka meel kasta oo waxa weeyaan dhalinyaradu ay waxa weeyaan ku jiraan waa la taaban karaa waxa kaloon daawadayaal arrintani wax ka weydiiyay xildhibaanada hadda golaha wakiilada mid kamid ah waa xildhibaan dhalinyaro ah waa xildhibaan Ibrahim Mahdi Buuba oo aan weydiiyay isbedelka ay dhalinyaradu ku keeni karaan siyaasadda runtii dhalinyaradu waynu garan karnaa waxay ku keeni karaan siyaasadda haddii ay soo galaan la'aantood siyaasaddu horumar ma samayn kartaa oran karnaa dhalinyaradu waxay tiirka koowaad ee siyaasadda qaran kasta hagta siyaasad aan dhalinyaro ka muuqana waxa weeyaan dhari bilaa milix dhadhan yeelan maayo waxaan aaminsanahay in ay ku soo kordhin karaan waxyaabo badan oo bulshadu u baahan tahay awoodo badan iyo shaqooyin badan iyo xirfado badan iyo aqoon iyo waqtigii uu qofka dhalinyaradii waxa uu ku jiraa maskaxdiisa iyo xooggiisa iyo muruqiisuga oo firfircoonaa wax qaban karana marka xilliga qofka dhalinyarada siyaasadda ku soo biiro waxaan aaminsanahay inuu samayn karo isbedel hor leh oo la taaban karo وطيان حلبان ضدك إمك وين إم بدن بيشقينين هذا تاي كلها ديجان كوسير هذا وكيل هذا لأن يرضى إمك سوق ليس السياسة ده إن محيك جونك سنان كان runtii horta laga maarmi maayo mar walba wafruug cadaa ah oo siyaasadda qaranka dee xubno ka ama hagayba hase yeeshee markaynu dhalinyarada usoo noqono isbedelada ay samayn karaan la taaban karo way muuqdaan waxaa sida og tahayba adduunyada waxa haga isbedelada had iyo jeer ka socda dad dhalinyaro ah hagaya waxa ma garanaysaa ay ku soo kordhiyaan indha furnaan fara badan iyo furfurnaan fara badan oo horumar u keena bulsho kasta dhaqdhaqaaqa ay sameeyaan dhalinyaradaasi waxa ay keenaysaa isbedel ballaaran oo mug leh oo dhaqan dhaqaale inuu wadanka ku dhaco marka ay ka qayb qaataan talada dalka siyaasadda hagideeda laakiin haddii ay ka maqnaadaan oo ay ka maran yihiin waxa imanaya gaab ballaaran oo keenaya kala maqnaasho iyo kala fogaansho aaraada bulshada iyo jiilasha cusub iyo madaxdii hore ee jiri jirtay ma oran karno looma baahna in ay dalka dee ka taliyaan ama ay hogaamiyaal ka ahaadaan dadka ay rugcadaaga ah aynu naqaano iminka dalka hagaya oo dad loo baahan yahay waayo arag ah bislaaday dalkuna aanu ka maarmi karin hase yeeshee siyaasadooda inay ka badhnaato dhalinyaro waxay iyaga laftooda ku keenaysaa caqabad oo waxay ku keenaysaa gaab weyn oo ah
in ay kala fogaadaan aaraadii iyo fikiradii bulshada iyo jiilasha cusub soo korayay iyo dadka madaxda ee xilliga u talinaya saas darteed isbedelada la taaban karo ee dunida ka dhacda waxa haya waa dhalinyaro waxa horsocda waa dhalinyaro waxa maxaan ku raadayay aan marnaba looga maarmi karin waa dhalinyarada weeye saas darteed dhalinyaradu waa tiirka koowaad ee isbedelada dunida ka dhacaya hadday tahay teknolojiyadda cusub hadday tahay waa aragnimada cusub hadday tahay dhaqanka iyo isbedelada iyo maraaxilka kala gedisan ee mar walba la kulmayso bulshada caalamku dhalinyaro ka kow ah saas darteed baan marnaba loo kala saari karin siyaasad iyo dhalinyarada bal markana aynu soo qaadano daawadayaal agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan wax ka weydiiyay isbedelka ay dhalinyaradu ku keeni karaan saxada siyaasadda qofku markuu dhalinyaro yahay waxa ku jirta tamar badan inuu wax qabto waxa kaloo ku jirta higsi badan buu leeyahay fog higsigaas wuxuu saamaxayaa inuu ilaaliyo mustaqbalkiisa fog oo uu ku dadaalo inuu mar kasta wax ka tago si uu sumcad ugu yeesho dalka dadka inay qabtaan waxa ugu horeysa waxa weeyaan maynaan aqooninba in dhalinyaro wax qaban karto sababtu maxay ku tahay wax la oran jiray waxa tiin mustaqbalkii berito waxa tiin madaxdii berito marka maanta inay dhalinyaradu leeyihiin cidaba uma haysan imanka hore waxa runtii markii hore dhalinyarada dhiirigelin badan siiyay shirkadaha private-ka ah oo xilal waaweyn u dhiibay taasoo dhalinyarada soo saartay inay wax qaban karaan mar labaad xukuumadda mas'uuliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland markii madaxweynuhu uu talada la wareegay dufcadii ugu horeysay oo magacaabay dhalinyarada badnaay ama aan dhahdo inta badan ba dhalinyaro ah ilaa iminkana wasiirada iyo agaasimayaasha guud ama mas'uuliyiinta qaranka waxay u badan yihiin dhalinyaro taas waxay sababtay markii dhalinyaradii ugu horeysay dufcadii ugu horeysay la magacaabay ay wax badan ka qabteen dalkii dadka oo isbedel badan muujiyeen ayuu madaxweynuhu ku dheeraday inuu dhalinyaro kala badan magacaabo haddaynan holcin adow haddaynan nabad hantiin haddaynan dalka hore u wadiine haddaynan dalka hore u wadiine waxaynu soo aragnay oo in badan soo la fagurnay isbedelka ay dhalinyaradu siyaasadda ku keeni karaan oo mas'uuliyiin kala duwan aan wax ka weydiinay bal haddaba markanaynu weydiina dhalinyarada isu soo sharaxday doorashada golaha deegaanka doorka ay ka qaadan karaan ama isbedelka ay ku keeni karaan siyaasadda bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Mukhtaar Sheekh Maxamuud Cabdillaahi kana sharaxan ama u sharaxan golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa ee urur siyaasadeedka dalsan waxaan ay musharax aqoonyahan oo heer jaamacadeeda una tartamaya golaha deegaanka hadduu ilaahayna gaarsiiyo golaha deegaanka musharaxnimada aan isku sharaxay waa mid ka turjumaysa doorka dhalinyarnimada ee sanadka ay ku leeyihiin horumarka iyo arrimaha bulshada iyo siyaasadda ee la jaan qaadaya dimuqraadiyadan ka hana qaaday dalka jamhuuriyadda Soomaaliland anigu mukhtaar ahaan hadduu ilaahayna gaarsiiyo golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa haddaan ku soo baxo waxaanu wax fara badan ka qaban doonaa ama aan ka qaban doonaa arrimaha bulshada tooska u taabanaya maadaama golaha deegaanku aanu ahayn golo siyaasadeed uu yahay golo wax qabad oo arrimaha bulshada wax lagu qabanayo ay ka mid yihiin in dadku ay helaan waxyaabaha basic u ah nolosha sida inay helaan nadaafad sida inay helaan wadooyin si fiican u habaysan sida inay helaan caasimad u qalanta caasimad in loogu yeero caasimad oo aanay noqon meel qashinku saameeyey waxa kaloo aan anigu aad awood u saari doonaa qaybta caafimaadka oo ah wasaaradda caafimaadka iyo arrimaha deegaanku inay isku xidhan yihiin oo haddii qashinkii si fiican loo habeeyo oo maamulkiisii si fiican loo habeeyo in micnaheedu tahay in caafimaadkii bulshadana si fiican loo wanaajiyey insha Allah taala xasan cali waa xildhibaan ka sharaxan ururka rays dhanka haweenka dhalinyarada ah waxaan weydiiyay dhalinyaradu hadday golaha deegaanka ku soo baxaan maxay siyaasadda ka bedeli karaan
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دمان وحن سلام بها تلفزيون قرنكا run ahaantii horta siinibay isbedel marka la sheegayo waa wax ama horumar la keeni kara ama keeni kara anigu waxa ka sharaxanay xisbiga rays gaar ahaan waxa ugu jira qaybta dhalinyarta ee xisbiga rays run ahaantii hadii aan ku guuleysano golaha deegaanka ama aan soo baxno horta fursad weyn buu tahay siyaasadda dalka Soomaaliland oo ay ku soo baxaan dhalinyaro oo ka muuqdaan ka qayb qaadashada siyaasadda dalka hadaynu nahay dhanka isbedelka ee horumarka wadankeena maanta wadankeena ma baahna fikrado dad waaweyn ku shaqeyn jireen waxay u baahan yihiin tiknoolajiyad cusub casri cusub bay baahan yihiin iyo wadankan inay la jaan qaadno wadamada jaarka ee horumaray dawladda hoos ahaan horta shaqadeedu waxa weeyaan waa nadiifin iyo qurxin iyo bilicda caasimadda run ahaantii caasimadda Hargeysa waxay noqon doontaa hadii ay dhalinyaro ku soo baxdo oo ay ku guuleysato iyagoo kaashanaya fikradahooda cusub iyo horumarka gaarsiin lahaayeen wadanka inay wax badan ka bedeli doonaan bilicda caasimadda Hargeysa iyaga oo u hormoodi doona iyaga oo la kaashan doona tiknoolajiyada casriga cusub watay agaasime wadana kala duwan baad marto caalamka kamid ah maxaa la taaban karaa dhalinyaradu isbedel keeni karaan waxay keeni karaan ku sheegay iminka Rwanda oo kale 1994 genocide baa ka dhacay adaynagu 1994 hortay baan dawladda lahayn laakiin genocide baa ka dhacay xilliga haddana maanta waxaad arkaysaa inay meel sare marayaan inaga horreeyaan do you know why maad garanaysaa dadkii oo dhan bay wada bedelo dhalinyar baa xilka u qabatay xitaa madaxweynuhu Paul Kagame waa dhalinyaro marka waxa weeyaan dhalinyarta ayaa la halkaas aad ka aragtay good example even inta badan agteena dhalinyarta shaqada xoog strong loo siiyay ninkii xafiis ninka weyn la taliyayaal iyo magaraysa un baa jooga laakiin xafiisyada mostly in aragtay Ethiopia wax ku shaqeeya dhalinyar weyn marka waxa weyn wadano badan oo siyaasad jir Rwanda jira xitaa waxa jira wadanada carabta oo kale sida maxay ahaydeen Beirut oo kale baashi maxay Lebanon oo kale waxaad arkaysaa dhalinyar badan oo shaqada loo dhiibay marka dhalinyarta shaqada lagu badiyo waxa weyn isbedel fiican baa yimaada marka iminka dawladda maxay Rwanda ku sheegay oo kale waxa dhacay mataqaana dhalinyartu waxa weyn baarlamaanka boqolkiiba 80 baa ya badahin dhalinyar badan hadayna ka badnay halka ka sareeyaan marka dhalinyartaasi oo day waliba inta la jawle soo dhalinyar wax soo baratay marka dhalinyartu aad bay wax u bedeli karaan oo marka inaga laftigeena inaad initiative masalan dhalinyarta ag wasiiradeena hadaad xitaa yareed wasiirado kale hadaad yareeto niba ninku ka dhalinyar yahay moodaa inuu ka active yahay agaasimayaasha guud oo kale hadaad aragto niba ninku ka yahay moodaa inay ka toodo haddaan mashangareeyo waxa loo oranayaa malaha ninkani xagga madaxtooyadu waxay xirsi oo kale he's active guy waana in dhalinyaro hada waa active guy oo aad active hada waa dhalinyaro marka dhalinyartu hada jeer wax bay qabataa agaasimaha guud ee wasaaradda muxuu haay qoyska wasaaradda labor social bash he's a very active guy waxay dhalinyarta hadaad aragto waxaad arkaysaa nimanka dhalinyarta inay xukuumaddeena ku jiraan inay ka active yihiin kuwa kale nimada DG-yada yar they are very active niman aad active waa qaarkood marka taasaa tusaale kuugu maan dib ugu malaxsano wax qabadka ay dhalinyaradu leedahay markaanu eegno wadamada jaarkeena ah way muuqataa waxa ka warhaysaan wadamada jaarkeena sida dawladda Ethiopia federaalka Ethiopia iyo Djibouti iyo Kenya isbedelada ka jira inay koow ka tahay dadka aqoonyahanka ee dhalinyarada mutacallimiinta ee xeelalkii qaranka la wareegay taasoo aanu aran karno waxa wadamadu ka dhigeen ama ay ka sameeyeen isbedelo iyo guulo waaweyn oo la taaban karo aan tusaaleedii soo qaadi karaa fudud oo wada fahmi kartaan maanta ismaamulka dawladda kilka shanaad oo runtii dib dhac laxaad ka muuqday ka hor intii aan wasiirada iyo dhalinyarada aqoonyahanka mutacallimiinta aan xilalka lagu dhiibin maantana maraya heer ay soo gaari karaan ama ay la tartami karaan Ethiopia inteedii kale sidaas darteed waxaan leeyahay aqoonyahanka iyo mutacallimiinta dhalinyarada in laga shaqeysiyo qaran ahaan waa waajib iyaguna inay xilkooda tuurta u ritaan oo qaataan waajibkooda gartaan waa waajib qarankan iyo dalkan ku leeyahay haddaba gabagabadii maxay mas'uuliyiintani kula talinayaan dhalinyarada soo galaysa siyaasadda ma anu waxa oran lahaa dhalinyarta siyaasadda ha la galo laakiin ha lagu galo si transparent siyaasadda la galo dawladda dadkii aan rabnay inay wax bedelaan siyaasadda ha la galo oo si transparent ah lagu daro dhalinyarta siyaasadda gashayna waxaan leeyahay ummaddu ha u doorato
ha u doorato hab qabiilka ka madax bannaan si laynkii loogu ridadee laakiin haddii aan siyaasad isku sharaxay hay qabiilkayga doorto welida qabiilkii baan rumaysana dhow qabiilkii baan wax siini laakiin waa in dhalinyarta musharaxiinta ay sharaxaya waa in lagu doorto dhalinyarnimo haweenka waa in lagu doorto haweennimo dadku haddii gruub siyaasi jirayo waxbaa fiicnaan lahaa oo laga madax banneeyo waa arbaalka qabiil iyo dawlad iyo horumarmeen ma wada maraan dhalinyartaha laga ilaaliyo qabiil kuwa wax dooranaya dhalinyarta murashaxiinta rool fiican bay qaadan karaan door wanaagsan bay qaadan karaan waa initiative waa active waxa weyn wadad energy haya hal la doortaan leeyahay laakiin waxaan leeyahay hal la doortee see lagu dooranay waa reer ha ku dooranina dhalinyaro istooradu that's my sono aan wada ogsoonahay dhalinyarada marka ay tartanka doorashada ay gelayaan golayaasha deegaanka hadda waxaanu ognahay in xubno inkastoo tirooyinkii aanu filaynay ay aada u weer yihiin haddana ay jiraan isa soo sharaxay oo dhalinyaraha waxaan kula talin lahaa dhalinyaradaasi in ay marka koowaad ka galaan kambeynka oo ay doorashada markay gelayaan in ay la kulmaan dhalinyarada facooda ah oo aanay u oleynin hab reerood oo aanay reero dib ugu noqonin ay soo urursadaan dhalinyarada iyo waxgaradka iyo aqooyahanka taasoo ah bridgeka koowaad ay kaga gudbi karayaan caqabada hortaagan ee ah reernimada iyo in reerku oday ama nin da ah uu keensado la tartabo oo la kana reerka wuxuu talaya ama wuxuu qabanaya aynu kan keeno sidaas darteed waxa ay kaga gudbi karaan ma leeyahay caqabada marka haddii ay tallaabooyinka ku dhaqaaqaan oo ay ka galaan kaambeynkooda iyo ololahooda inay dhalinyarada facooda iyo asaagooda ay ka dhacdhiciyaan isbedelka ay doonayaan dalka inuu sameeyaan codkana iyaga weydiistaan waxaan aaminsanahay inay si dhib yar boodhka ugu qasi karaan ama ay uga dul talaabsan karaan doorashada dadka da-da ah ee la tartamaya kana guulaysan karaan si dhib yar saas darteed waxaan leeyahay ha hilmaamina halkaa codka weydiisanaysaan maaha reeraha dib ugu noqotaan waa dad lodka da-diina ah aqoon-yahanka maanta gobol iyo degmo kastoo dalka kuumayba jooga aad iyo aadna waa idinku rajeynayaa guul inaan kusoo baxda haddii la idhaahdo tartankaas already madaxweynaha somaliland wuu ogolaaday ballanqaadkii xisbiga kulmiye iyo ballanqaadkiisina waa ku jirtay inuu dhalinyarada siyaasadda u fasixi doono wuuna soo bandhigay golaha baarlamaankuna u gudbiyey baarlamaankuna waa ansixiyey madaxweynuhuna waa ogolaaday already xeerkaa dhalinyarada inay tartanka siyaasadda iyo siyaasada ka gasho waa la fasaxay laakiin waxaan kula talinayaa dhalinyarada waxa weeye waa wejigii ugu horreeyay golayaasha deegaanka la gelaya marka horta qodobka waxaan oran lahaa golayaasha deegaanka de horta wuxuu yidhi intaan ku fashilin lahaynba intaa ka yarayde horta dhalinyarada golaha deegaanka lagu tijaabinaya waxaan leedahay inaan fashilinine ilaa anna wasiirkiinni baan ahay waa inaad ka tagtaan oo golayaasha deegaanka markaa kusoo baxdaan taariikh lagu faano waa inaad waddanka uga tagtaan oo wixii hore hadday wax hore khaldamaanna lagu ilaawo hadday wax hore saxnaayeenna aad kasii kordhisaan waxaynu soo gaadhnay guntii iyo gunaanadkii barnaamijkeenaynu ku falanqaynaynay isbedelka ay dhalinyaradu ku keeni karaan siyaasadda barnaamijku waxa uu kula talinayaa dhalinyarada in ay la yimaadaan mas-uuliyad miisaaman oo ay ku hagaan dalka iyo dadka waxaa kaloo looga baahan yahay inay dalka hore uga sii mariyaan halka uu maanta marayo taariikhdu way qori doontaa kaalinta ay dhalinyaradu ka qaataan horumarka geedi socodka dimuquraadiyadeed iyo weliba isbedelka siyaasadeed ee laga sugayo waxaan intaasi kusoo koobaynaa barnaamijkiisa aynu ku falanqaynaynay isbedelka ay dhalinyaradu ku keeni karaan siyaasadda oo mas-uuliyiin kala duwan igala qayb qaateen dhammaantood waana wada mahad celinayaa isku soo dubridka iyo soo saarista barnaamijku waa sayna maxamed cabdi kamarada iyo dhitinkuna waa maxamed caqli oon aada isnoogu mahad celinayo qadarkeeni hadaynaan heegan gelin hadaynaan holcin adow hadaynaan nabaqatiin hadaynaan
dalka hore u wadiine haddaynan dalka hore u wadiine